بسم الله. لمعلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في سماء زماني شكرا لكل معلم رباني شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وبعد إن شاء الله تعالى مانتا ومالين سنين سدح توانك بشي أبريل يكون بيغان تهي هدي الله هذا وحرمنا إنن باللونو دروس 10 كوكوبان أو قيب سي كوبان أنو قد بنينو تفصيلات كإيو شرحات إيو exercise kiyada iyo ka shaqeyntooda leyliyadana aan insha Allah si gaar uga wada hadli doono laakiin 10 ina 10 u soo gudbiyo kitaabka la yiraahdo duruusul arabiyya li ghayri naatiqiin biha. dadku waxaan ku ballanay inaan soo galayo live inaan kitaabka sharaxay. kitaabku wuxuu dhaxyaalaa meel walba wacaan duruusul arabiyya li ghayri naatiqiin biha. qofkii baxthi google-ka ku sameesto wuu heli karaa. sidaas daraadeed waxaan codsanayaa qofka aan haysan inuu kitaabkii raadsado, kitaabka agtiisa soo dhigto. cashirkan wuxuu si hordhaca iyo ogeysiis noogu yahay duruus aan rabno oo ku saabsan barashada culumta shareecada inaan kusoo gudbino iyadoo la isticmaalayo zoomka iyo telegramka iyo whatsappka iyo anagoo meelahaas ka wada xiriirayno inaan duruustaasna agaasino intuu cashirkan socdaan rabaa. cashirkan kitaabkan la duruus العربية لغير الناطقين بها wuxuu hordhac u yahay barnaamijkaas, barnaamij weyn oo koox culimo iyo ducaad Soomaaliyeed aqoon-yahano ay ku soo gudbinayaan qaybo ku saabsan culumta shareecada maadooyinkeeda kala duwana. cashiradan kitaabkan la duruus العربية لغير الناطقين بها waa kitaab aad u qiimo badan. kitaabada laga qoro luqadda carabiga in dadku ku hadlaan fahmaan oo luqad ahaan loo barto ku hadalkeeda wuxuu ka yahay kitaabada ugu caansan mid kamid ah. waxaa kaloo kitaab caan ah kitaabka la yiraahdo al-arabiyyatu bayna yadayk. hadda insha Allah si sharaxaad aan iska dul mareynaa ardayga inuu kitaabkiisa haystaa wanaagsan. mustaqbalka waan sameyn doonaa iyo ardayda zoomka oo imtixaanada iyo rabaan inay ku galaan inaan sabuurad u saarno insha Allah taala. darsigan koowaad waxaan ku sharaxaynaa marka kitaabka la yiraahdo duruusul arabiyya li ghayri naatiqiin biha. saasan u sheegaynaa mutaabiciinta. kitaabkaas marka wuxuu noo sharaxayaa basic bilowga iyo asaasiyaadka luqadda carabiga. luqad marka la isbaraayo dadka ingiriiska barta way yaqaaniin what is this iyo what is that yaa la baraa oo kan waa maxay kaas waa maxay aa la baraa. carabigana nafsu shay marka qofka wax la baraayo ishaara la baraa. caruurta marka la tarbiyeynayna waxaad ogtihiin luqadda la baraayo waxay luqadda ka bilaabataa kan iyo kaas iyo hebel iyo heblo iyo ishaare iyo magaca la baraa. qofka luqadda meeshaasuu ka bilaaban karaa inuu barto ishaaraadka iyo magacyada. darsiga koowaad oo mawduucan waxaa la baranayaa waxaa la yidhaahdaa darsu lawal haadaa aa la barana. haadaa sida loo dhigo waa taqaanaan. haadaa waa magac wax lagu tilmaamo, waa magac wax lagu tilmaansado, tilmaan lagu bixiyo. waxaana tilmaantiisu ay noqonaya tilmaan qarsoon waaye wax oo aanan cadayn. waxaa lagu cadaynaa marka in farta la raaciyo oo shay kuu dhowna lagu tilmaamo. waxaad leedahay markaad rabto inaad isticmaasho fartina waa ku daraysaa. marka cashirka koowaad waxaa la baranaa sidee carabiga loo isticmaalaa kelimada ah haadaa. haadaa carabiyada sidee loo isticmaalaa. haadaa waa magac lagu tilmaamo hal qof oo lab ah oo dhow. waxaa lagu tilmaamaa hal qof oo lab ah oo dhow. waxaa jira carabiga aad u baaxad weyn yahay hal qof oo dhadig ah oo dhow tilmaan kale leedahay. hal qof oo lab ah oo dhow marka la tilmaamayo maxaa la leeyahay
ha u dhawaado dhawaansho xaqiiqiya amba dhawaansho macno ah haadaa la leeyahay haadaa kan a la leeyahay oo tilmaan dhow oo farta lagula fiiqaayo fartaad isticmaalayso aad ka dhigaysaa fartku fiiqidda waxay meesha ka saaraysaa mubhamnimadii qarsoonaantii uu qarsoonaa shayga la tilmaamayo haadaa adoo gacmaha ku laaban yihiin ma dhihi kartid amba madaxa ku tilmaan amba indhaha ku tilmaan amba farta ku tilmaan ishaare inaad raacisaa shardi ah kelimadaasaan baranaynaa kelimadda la yidhaahdo haadaa maxay carabiga maxaa loo isticmaalaa marka haadaa waa labaan dhahnay waxaa lagu tilmaamaa hal shay oo lab ah oo dhow saddexdaas qodob qofka inuu qaato waayo hal shay hal qof labna ah oo dhow amba wuxuu ha ahaado xaqiiqatan lab ha u ahaado amba macno ahaan lab ha u ahaado shayga lab ha u ahaado macno ahaan amba xaqiiq ahaan ha u ahaado insha allahu tacaala marka waxaad kula soo biiraysaan qofkii rabo duruustan waxaan dhigi doonaa beijka aan u bixinay koorsooyin waxbarasho aan dhigaynaa oo telegramka marka haadaa cashirkeena kood waxaa la baranayaa haadaa maalan tusaaleahaan waxaad leedahay guri aad rabtaa waad ag istaagsan tahay gurigaanaan deganahay inaad tiraahdo amba gurigaan farta ku fiiqdaa maxaa samayne waxaa leedahay haadaa beytun kan waa guri waxaad leedahay haadaa guriga meesha buugga waxaa ku sawiran cashirka koowaad guri hoostiisana waxaa ku qoran haadaa beytun a ku hoos qoran maxaa leedahay marka haadaa beytun kan waa guri marka waa guriga ag taagantahay gurigii lab ma ahan xaqiiqatan laakiin macno ahaan waa lab oo ereygaas beyt macno labuu leeyay maxaan dhahaynaa marka haadaa beytun masaajid kuu dhow ood rabta inaad tilmaanto maxaa leedahay waxaad leedahay haadaa masjidun haadaa masjidun fartaa ku fiiqaysaa adoo ishaaraya waxaad leedahay haadaa masjidun laakiin masaajidkaas waa hal masjid wuuna kuu dhow yahay waana macno labuu wataa maxaa leedahay marka haadaa masjidun fartaa ku isticmaale fartaada haddii laga dhaafo ishaaradii waxba qiimaa ma samaynayso isticmaalkii sidaas oo kale waxaad leedahay haadaa baabun albaabaad ag istaagay albaabiyada ka mida waaye oon hadda albaab gooniya ahayn iridaad aad soo ag maraysaa waxaan maxay yihiin dariishada madaaqada mise waxaa lagu yidhi markaasa waxaa leedahay haadaa baabun waxaa ku tilmaamaya gacantaada waxaadna u isticmaalaysaa shaygi waa shay kuu dhow wuxuu leeyahay baabku waa macno lab ahaan macno oo labuu leeyahay laakiin shaygii inuu lab yahay oo lab wixii lagu yaqiina leeyahay kama dhalanayso laakiin macnaha oo wato macno lab waay maxaa leedahay marka haadaa baabun waxaa kaloo la mida kitaab meel yaalaad tilmaamaysaa waxaad leedahay haadaa kitaabun haadaa fartaa ku fiiqay kitaabkii meel kuu dhow u yaallaa waa hal kitaab macno labuu leeyahay maxaad leedahay haadaa kitaabun qalinkaasaad tilmaamaysaa waxaad leedahay fartaa ku fiiqay waxaad leedahay haadaa qalamun farta ku fiiq waxaad leedahay haadaa qalamun shaygu wuu dhow yahay shaygi waa hal xabo marka la tilmaamaya marka maxaa la isticmaalaa haadaa la isticmaala waana lab ma fahanteen saddexdaas shardi waay shay dhow wax dhow hal ah lab ah haddii la helo maxaa la isticmaalayaa waxaa la isticmaalayaa haadaa maxaa la leeyahay marka haadaa qalamun haye furaa lagu keenay fure maxaa leedahay haadaa miftaaxun fartaa ku fiiqee furihi waxaa leedahay haadaa miftaaxun kanu waa fure aa leedahay kanu waa fure ma fahamtee masaladaas waxaa soo haray sidaasoo kale haadaa maktabun xafiiska sawiruu leeyahay buugu qofku wuu arki karaa indhaha qaba wuxuu u jeedaa kursiga miiska xafiiska yaala miiska xafiiska marka maxaa la isticmaalaya waxaa leedahay haadaa maktabun adoo farta ku fiiqayo maxaa dhehaysaa haadaa maktabun farta ku fiiq miiski markaas dheh haadaa maktabun sariira meel taal haddaad tilmaam lagu yidhaha maxaa leedahay marka sariir waa hal xabo hal sariir waxay leedahay sariirtu af soomaaliga macno dhadig ku yahay carabiga waa macno lab af soomaaliga sariir macno dhadig camal aan u dhahnaa sariirtii iyo sariirtii aan dhahnaa soo maa saas maaha carabigu waa macnaha sariir waa macno lab maxaan leenaha marka haadaa sariirun kanu waa sariir annaga waxaan dhihi lahayn tan sariirti waa tan aan dhihi lahayn oo haadihi aan isticmaali lahayn laakiin af carabigu sariirtu waa macno
لبوا وحلنا سلاس درادد هذا سرير فرتك فيق شيء إنه كودويا هل شيء لب هي شردي سدح ناس وحي أفسده وحاو استعماله هذا محان برانينا هذا هي كرسي كليجيسا كرسي ماليالا فرتك فيق أو كودو أو هل حباء كرسي كان معناه لبوليه محان داينا مركز هذا كرسي إن شاء الله أيضا صبرنا عن زوم كبحينينا dadka leyliyada iyo lagala shaqeynayo si gaar u wada hadli doonaa wala fahma soma hada maxal leh kursiyun fartaku fiiq adu wad u dhowdahay wuuna ku dhow yahay waana hal shay hada markaas la isticmaala intaas ma la fahmi karaa su'aalan meesha yaala marka waxa lagu leeyahay ma hada cashirka qaybtiisa kale bagaxiga wuxuu ku leeyahay ma hada sawirna meeshu ku soo dhigaya sawira meesha ku yaala waxa lagu yiri ما هذا صور كهدو قري هي ما عندنا ما هذا كانوا محويه صور كوا قري ما عندنا صور كهدو قري هي صور كهدو قري هي ما عندنا ما هذا هذا بيت كان محلنا ما هذا كان كحيقة محلنا كاس هذا قميص صومها كان هذا قميص هاي كان محلنا هاي ما هذا كان لحظة كجرة محلنا هاي ما هذا هذا كرسي كان محلنا هاي فرتك فيق وهل حبوا محلنا مركا هذا كرسي كان كحيقة محلنا هاي ما هذا وقلن محلنا مركا هذا قلم فرتك فيق ده مركز هذا قلم ما لا فهمين داس هذا قلم ساسا لغو ودايا هاي كان كحيق يا شيغي كرو سو قري كرا كان محل يرادا اريغاس ماشي كو قرن محل يرادا اشار وكو دو يحيى مثلا فرتد كو فيقيسا محل هاي كتابك كو هريال صورك كو قرن ادو تلمامايا ده محل هذا مركز هذا نجم كان واحدك على ساسا كو وديسا عشركا سؤالات سداد كجوابته وكاس هذا نجم شكرا عشر كاس مركا ماشي معاكو فهمتي ماشي معاكو فهمتي سيده wax loo tilmaamay hadii aan marka hadana ku soo dhiga mar labaad kugu soo celiyo maxaan leenahay tamriinaadkiisa su'aalihiisa kan u koreey maxaan leenahay maxaan dheena maxaan leeyahay ma hada محل جوابه هذا قلم هاي كان كحق ما هذا محل ليه هاي هذا كتاب هذا مفتاح كان محل هذا كتاب كان كحق محل هاي هذا قلم ما هذا الغداء كجواب مركز ساس أخرين هاي جوابته حال ربائنا بوق هرتي سكوكرته ماشى بنان أو بوق هرتي سكوتالا ماشى سكوكر هذا كتاب هذا قلم كقر بوقا كل شقة إن شاء الله تعالى كان محل ليه هاي ما هذا بيت كان كل حاجة ما هذا هذاك جوابي ساسا قوة ديسا عشرة مركز ساسي أفد فدودهين هذا محساس الله استعماله سؤال شمركة أو هذا سؤال لقد جاي مع كهر مرني ما محن هني ما هذا وحكى السؤال وقد كرنا همزان كهر مرنينا وحي هيد موقتها هذا بيت يا هذا مسجد سؤال كدك هذا مسجد هيا سؤال سيلو كدك هذا مسجد همزة كهر مري هذا مسجد انت همزة كهر مري ما عندها مرك أهذا مسجد كانوا ما مسجدا محل هذا هاي هذا مسجد كانوا مسجدا همزة كهر مرس سؤال شهد محادا يا مركز هذا مسجد على سؤالنا واتساريسا ساسي أقرنت هاي مركز على سؤالنا ولا سارا يا سؤال ساسي نغني هذا مسجد كانوا مسجدا موجدا كان محل لقوه دينا مركز سؤال شحكته قالين واي كان مقالنا سيلو ليه كان مقالنا سيدلو دهايا أهذا
قلم كانوا قلن مية سؤال شيء تساس جوابت هذا لقى ربا كان كوحي محل لنا شاتقة هذا قميص أنا قميص وعندنا كان حرانه هو كالأمريكا لوطه لكن قميص شارك على دها في عربية موجودة هذا قميص كاسو كلام محل لنا أو كودوي هاي وهل شار ملدو يلا بوجا وكوجس وريها صور كتلمان ده مركز محل سؤال كويدي محل هذا هذا قميص وهذا قميص ساسد ويدينيسا مع سوهري كان سؤال كديك محل لي هاي هذا نجم هذا نجم نعم هذا نجم ونغنس جواب هذا قلم هذا إلى السؤال الويدي سؤال كديكستان برانينا هذا سؤال سيال لو كديكا هذا نجم كانوا محدقا جوابتنا كوهر قرء ماشا بنان ماشا بنان محاكو قريسا نعم هذا نجم نعم هذا قميص نعم هذا قلم نعم هذا مسجد ساسي جواب تكون غنيسا سؤاشنا ساسا ليسوي ديا هذا ساسا الله استعماله انت اسقفك فهمه وحواي عشرك wax badan oo ka maqan yahay male dadku way yaqaanaan markay ingiriiska baranayaan what is this is a book iyo this is a pen iyo la baraa kadib su'aal looga dhigaa carabigana nafsu dariiqa lagu bartaa buugaagtan casriga saasi u qoran yihiin cashirkaas marka tamriinaadka qaybta koowaad waa sidaas tamriinka xigo asaa kaaga jawaabay wuxuu ku leeyahay qaybtan xigto su'aaliyu kaaga jawaabaya ma hada waxa lagu soo dhigay sawirkii waxa lagu yiri ma hada maxaa leedahay hada masjidun waxa lagu soo dhigay eeya lagu soo sawiray tilmaan sheeg inuu eey yahay sheeg maxaa leedahay eey ku dhow oo hal eey ah maxaa leedahay marka hada kalbun hadii su'aal ka dhig lagu dhahana hamza gali maxaa dhahe هذا كلب على السؤال أنه يليس مركز قريس هذا كلب إن شاء الله صبورا المرضى بسار دونا لك هذا واسكب لو هذا كلب كان لو صدقي يعني يورتن ماشي كسر ويان يورتي أو حلو لها بم كلال سدا أتقانه وحلو يري هذا كلب كانوا أيمية جاوبت معي نقانه لا هذا قط لا هذا قط لا هذا قط مايا كانوا يور أبو مكرال سيدا أتقانيد لا هاي سؤال كلا لقويدينا وحال قول لي هاي هل كان وحكو سورا دمير وحال قول لي مركز هذا حمار هذا حمار كانوا مدميرة محل هاي نعم هذا حمار ماشان فرسا كسورا مركز وحال فرسكي وحال قويدينا فرسكي وحال قول لي هاي هذا حمار كانوا الدمير مية سؤال واي هذا حمار محلنا لا هذا حسان فرس كالنوعية بدنا الله استعماله حسان هذا فرس سجى معنا قد خاله عربي واللغة أدو باحد وين فرس ككلية على غيابة أنت صنع إن الله سيكلا قيبيو يمدكي سلب يمدكي سددق يمدكي سير إيو إنه مقعيو كلاليه لكن هذا ما تفسيرنا أيو دام سكيري هاي وقتيقو إن شاء الله تعالى كان حيقا وحالقو يري صورة ماشا لغو صدقي مركاسا وحالقو ويدينا يا هذا جمل كانوا مقيلة هذا جمل محل هذا مركز نعم هذا جمل سؤال كدقنا تلمان محل هذا جمل سؤال كدق محل هذا جمل هذا جمل كانوا مقيلة تلمان هذا جمل تلمان السؤال وبدل همزة اللي كدري عربي قو سهلية قرآن كي عربي يمكن لك على وسهلية هذا جمل كانوا واقيل سؤال كدق هذا جمل هذا جمل ساسا لذا كانوا مقيلة ساسا كوة ديسان إن شاء الله تعالى عشر ناس وحرجينا وحكدن بي أدقا كجوابي سيد ما هذا قال ويري جوابتم حين غني ما هذا بوقك وقلت الله
وكجوابنتها ما هذا كانوا محي محل هذا هذا ديكن أيه أيه كان حيقا وحلقوا ويدينا يا قفك السبورة التاغن وعشر كشرحها يا قالوا ويدينا يا محل ويري ما هذا كانوا محي محل لا مرك هذا مدرس قفك عشر كبردتك محلها معلمك ومدرس سوماين ساسا كو ديسا تمرينات كلام ماشي كجر جرا ان شاء الله تعالى marka qofkii rabo insha Allah asaga si dhameystiri doona ardayda waxaan rabnaa inay ka jawaabaan inay ii soo sawiraan WhatsApp-ka numberkayga waa idin soo saaraya markaan live-ka ka baxno dushiisa insha Allah ta'ala cashirkan waa iska bilow waxaan rabnaa ayadoo sabuurada saaran Zoom-ka inaan ku akhrino ardaydii rabto in lagu imtixaano oo si gaar ah lagala xisaabtamo waqti badanna la geliyo shahaadana lagu siiyo maadooyin badan ayagoo ah amba carabi khaas qofka u rababa waxaan ku bixinaynaa Zoom-ka marka Zoom-ka dib aan uga hadlaynaa arintiisa qofka rabo duruustan inaan u soo dhigno ayadoo coda waxaan u soo dhigi doonaa insha Allah ta'ala معلنك من هذا لليه ها من هذا معلنك من الله استعماله شيئا وحا الله استعماله ما هذا شيئاش وحا الله استعمال عربي ما مرك السؤال لقوا يديناي مرك قف نورا الله استعماله هنا محلان هاي من هذا ملاحظة عفوا من هذا كانوا كما هذا مدرسنا لله هدي لدها حيوان محلان هاي ما هذا هدي قف نول تهينا محلان هاي معلن انت التاغن تلمان سؤال كدك من هذا نف لقه هل كان تاغن أم فرس ماشان تاغن تلمان سؤال كدك محل هاي ما هذا قف نول هدو يهينه من هذا هدو حيوان أم بشي يهينه محل هاي ما هذا مركا انجليش كانوا كمان مركا الاستعمال أشياء مركا نولها الاستعمال ولا كلا الدواء عربي مركا يعقل ما لا يعقل هو استعماله وحي النول وحلو استعماله من هذا او هل حبا وحي حيوانات نولها جمادات كان محلو استعماله ما مركز السؤال لقد قال ما هذا ساسا لليهي ان شاء الله تعالى مركز عشرات waxaan rajeyna inaad soo mutaabiciisiin darsiga koowaad meeshan ku sameeyna waxaadna kala soconaysaan meeshan dusheedan saarayna cashirka markaan dhigo waxaan insha Allah ta'ala rabnaa inaan soo bandhigno duruuso taxana ah oo علوم الشريعة الإسلامية عبر معهد الصومالي للعلوم الشرعية شهادنا lagu bixinayo koorsooyin xiga afar koorso oo intensive ah qofka afarta koorso ka baxana shahaado dugsi sare oo tasdiiq leh oo sharciyeysan inaan ku siinaan rabnaa marka hoos aan wada hadlaynaa wixii oo ku saabsan sidee u soconayaan casharada maalmahay soconayaan dib aan ka soo gudbin doonaa marka ardayda danaynayso ha ku soo biiraan amba teleefankayga ha iga soo wacaan amba ha ku soo biiraan telegramka oo aan ugu talagalnay qayb telegramka ku soo biiri karaa ardayga wixii faahfaahinana whatsappkayga waan u soo saarayaa whatsappkayga ka soo raacaysaan whatsappkana faahfaahin idinku siin doonaa insha Allah ta'ala kadib ardayda markay soo diyaar garowdo cashirada dadka imtixaanka galayo Zoom-kan mar labaad cashiro diyaarsan ku siinayna cashiradaasna waxay noqonayaan cashiro imtixaan leh cashir walbana waxa la socon doono as'ilatu darsiga layligiisa uu raacaya su'aalaha aruursane imtixaanka finalka su'aalaha ku galaysa marka waxay ka koobnaan doontaa luqa carabiya oo ka kooban naxwo insha Allah ta'ala oo ka kooban naxwo iyo luqada carabiga oo kitaabkan duruus al-arabiya dhinaca kale caqiido oo kitaab tawxiid dhinaca kale tafsiir oo 3 juz ah xadiis oo ah fiqh al-ibaadaat umdatu al-ahkam kan ka soo qaadanayno fiqh oo ah kitaabka la yiraahdo madna abi shujaa oo qaybta cibaadaadka aan koorsada kuwad ku qaadanayno sidoo kale siirada oo ka soo qaadanayno kitaabka la yiraahdo hada al-habib uu qoray sheekh Abu Bakr Jabir al-Jazairi aan asagana waxaan ka soo qaadanaynaa insha Allah ta'ala kabilow ma qabla al-bi'tha ila iyo الجهر بالدعوة عن كورسات وركو بحنينا سيرة دب أهان لو فهمه أيسن نقن كلية مختصر ولا شرحها ولا أخرنا ولا معنينا وحنا لوجوس الدراية 10 كاللوجوسية سؤالها مهم كأو كجرو سؤالها سواء قرأ وحفظنا جواب تعالى مالا دجنا
ولقالا نقاشا مرك امتحان كاللقارنا السؤالهاس وحكا إيمانا امتحان كعام كأه السمستر كأودن مرك جزاكم الله خيرا بحسن متابعتكم درسين كواد كتاب كالليلة دروس العربية لغير الناطقين بها انت سنكسو كبكبينينا وإلهي وحكبرينا نبدي عافمات نسأل الله العفو والعافية إلهي دولك نبدها نوغاديغو إلهي عذر كان عالم كديد الله كقادو إلهي كون ظالمين تأه تبرتو دوي أركان تبرتو دمدي كو قرطان الله كديغو ميدك يا سيدي قشن بابورتي قشن كاللغو قاداي هوق لغو قرايا إلهي كي كتوبت كينان كوان سمان الله كديغو كو مسلمين تا مؤمنين تا كودنتين إلهي شهدها كيالا كو أجرنا الله نوع عافية انت كفيونا عافيماتك الله الدائميو إلهي عذر كان يعذر والمصيبة والبنا إلهي مسلمين تا كبت باديو والبهار كان إلهي مسلمين تا كقوي أدو أهل الإيمان هو البهار الدنيا قيمة ماله هدو كقود عنا تكون متن وادم بداف هدات كجرت حقا عيا لحن وسرطان وادم بداف هدات كل متن وشهيد نيمو هديك كلنا وادم بداف هديك كلنا إلهي عافيمات هلا سؤاشو إلهي ودن كاننا الله كبت باديو إلهي أمدنا الضعفاء مساكين تعتبرت يرانا هاي ولكن قوي وكوها إيمان كود إله إيمان كان نقبت بالي وإله الإسلام نمدنا نقدور وإله نحفدي وإله دل كان إنه حفدي وإله دينتنا إنه حفدي وإله ذريتنا إنه حفدي وإله أمدنا إنه حفدي إلهي وحكبرنا نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا وحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.